السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليي meel walbaad joogtaan marka hore soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel walbaad joogtaan waa anigoo ah Idris Cabdulqaadir Alteso. waa in salaamay meel walbaad joogtaan. marka hore waxaan jeclaan lahaa in aad soo badataan oo aad marka hore aad dad badan noqotaan. waxaan rabaa inaan arrin la yaab leh oo dad badanba ka khayrisin doonta ayaan idin wadaa. arrinta dhacdo xanuun leh waaye oo aad u dhib badan. marka ayaamahan dhanaan ku jiray oo aan ka daba socday. marka xaaladuna xaalad ma aha oo sahlan, qof walbana uu dareemi karo xanuunka ay leedahay. haddii aan bilaabo, dhacdo xanuun leh ayaa wiil Soomaaliyeed qabsatay. sidaad la socotaan magaalada ama magaalooyinka dalka Liibiya waxaa ka socota xaalad halis ah. waxaa lagu kala gadanayaa Soomaali iyo dad badan oo dalalka Afrika ka jooga. Liibiya hadda waxay maraysaa xaalad adag. dad ayaa la gadanayaa, dad ayaa la iibinayaa, waxaa laga iibinayaa wadamada kale. marka wiil Soomaaliyeed oo Soomaaliya kasoo jeeda ayaa xaalad cakiran ay haysataa. wiilkaasi Soomaaliyeed goordhow ayaan wareysan doonaa, goordhow ayaan wici doonaa. xaaladiisana ma aha xaalad laga sheekeyn karo. muuqaalkaas hadda waa waceynaa goordhow. markii aad daawato waad kheyroon doontaa, waana ilmeyn doontaa. waxaan u baahanahay in aan wiilkaas Soomaaliyeed aan u istaagno. codka everywhere la leeyahay. marka haddii codka uu maqal fiican uu jiro waa ii sheegi kartaan codka sidee waay. marka hore waxaan rabaa in codka si nadiif ah loo maqlayo. kadib waxaa waaye wareysiga ayaan bilaabeynaa. codka ma la maqlaa? codka haddii la maqlo way fiican tahay. bal iisoo sheeg haddii codka. wareysiga waa bilaabeynaa, wiilka ayaan wacaynaa, muuqaalka ayaad arkaysaan. codka kor u qaad ayaa la leeyahay, laakiin hadda aniga codkayga sidee ayuu idin soo gaarayaa? marka hore waxaan rabaa marka codka in uu ahaado. Zaki bin Xaaji wuxuu leeyahay aniga dhankayga waa 100%. waa tahay ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa 400 qofood dhan wayna sii badan karaan haddii aad sheergareysaan. xaalad cakiran ayaa wiil Soomaaliyeed ay haysataa, waxayna ku haysataa dalka Liibiya. xaaladuna ma aha xaalad sahlan. wiilka Soomaaliyeed lacag ayaa lagu xujeeyey, 3 bilo meesha ku jiraa. Liibiya intii la socota waxaa lagu kala iibsanayaa dadka, waxaa laga iibinayaa Carabta, waxaa laga iibinayaa wadamo badan. Liibiya dadka ayaa lagu kala gadanayaa. 100 sano ka hor ayay jirtay markii dadka madowga ah ay Mareykanka iibsan jireen iyo qolooyinka cadaanka ah. hadda laakiin Liibiya waxay maraysaa xaalad adag oo dadka lagu iibinayo. wiil Soomaaliyeed ayaa caawa wuxuu qarka u saaran yahay in laga iibiyo qolooyin kale. waxaan u baahanahay wiilkaas Soomaaliyeed inaan caawino. goordhow ayaan wareys ka qaadi doonaa, waa wici doonaa. waxaan la hadlay qofkii wiilkaasi haystay ee xooga ku haystay ee magafaha. waa la hadlay, wuxuu ii sheegay in lacag ku dhawaad ah $5,000 laga rabo. marka ma ka hor dhacayo. qoraaladiina waan arkaa. wiilka ayaan hadda wacayaa. bal hadduu iga qabanayo kulli hadda waa isku xanaaqnay. ninkii magafaha ah waa isku xanaaqnay. marka wiilkan waca. marka fadlan
fadlan marka waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan shargaraysaan keliya intaas noogu dadaala si wiilkan loo garab istaago macnaha intaas xitaa ku caawiya muuqaalkan fadlan shargareeya wiilkan hadda waceynaa bal haddii uu iga qabanayo busy waa la leeyahay busy waa la leeyahay waa taleefanka magafaha numberka aan wacayo waa taleefanka magafaha busy waa la leeyahay busy waa la leeyahay kulley way igu soo celin doonaa waa u sheegay inaan soo wici doono oo aan live-ka aan usoo gelin doono waa u sheegay ninka magafaha kulley goorro asaa isoo wici doona weli waa qad marka waxaan rabaa inaan wiilka sawirkiisa idin tuso marka hore ka hor dhici maayo fadlan muuqaalkan shargareeya si dad badan wiilkan soomaalida ay u caawiyaan wiilkan aad u jeedaan waa wiil soomaaliyeed oo 3 bil u xiran ninkii la yiraahdo magafe wiilkan soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay caawimaad degdeg ah waxaa la sheegay in hadda isaga isoo wacay magafe ay soo wacay kulley waa ku celin doonaa wiilkan aad oo isoo wacay okay hadda waa ka qabanaynaa magafahan ka qabanaynaa waxaan rabaa marka inaan tuso dhibaatada Liibiya marka kulley hadda uu ka baxay isaga isoo wici doona marka wiilkan Soomaaliyeed waa maxaa la yiraahdaa Axmed Nuur Xasan Xaaji Axmed Nuur waa reer Koonfureed kulley haddaan ka qabanaa waa kan assalaamu calaykum saaxiib dareenkaaga aniga dadka hadda ku daawanayo kulley waa kugu cusub yihiin laakiin aniga ayaamaan dhanaa kula socday xaaladaada waa la socday sida ay tahay ayaamaan dhanaan kaa daba ordaayay dad call on holding qof kala soo galay may waay maqashaa umaleyn hadda haye marka waxaan ku dhahay aniga xaaladaada waa la socday هي هذا هي هذا marka waxaan rabaa in la aniga la caawiyo waxaan dhex jooga ajine هذا dadna deegaan ayaa dhex jooga aniga kaliya ayaa ku jira wax Soomaali ah marka anu waxaan rabaa Soomaalida inta joogta adduunka in Soomaaliya inta ku nool in ay ani caawiso ayaa garaqooda lacag waxa laga rabaa $5,000 aye marka waxaan u baahanahay caawin alle caawinayo ay Soomaalidu ay caawinayso aniga meesha waxa Liibiya ku jira 2 sano jooga oo ka jirkeegana wadarkiisa jirkeega 7 cishana kuma jiri karo anigu oo ka jirkeega waa hada u baanti marka adiga hadda waxay ku hadda ninka wuxuu ii sheegay magafaha in oo laga iibin doono hadda ay maqlayso ninka magafaha ninka hadda aniga wuxuu ii sheegay in oo la iibin doono maalmaha soo socdo adiga ma ku sheegay hadalkaas ninka hadda ku haysto aniga wuxuu ii sheegay in maalmaha soo socdo lagu iibin doono marka ma ku sheegay hadalkaas haye aniga ninkan hadda oo ninka idin ninkaas aniga wuxuu ii sheegay in oo lagu iibin doono adiga hadalkaas ma ku sheegay ninkan in lagu iibinayo marka lacagta laga rabana waa $5,000 maya aniga waa arkay kulley aniga waa arkay dhib ma laha aniga waa arkay marka hadda meeq qofa meesha kula jirta marka hadda meeq qofa meesha kugula jirto marka wax Soomaaliya kaliya ku jira marka ummadda Soomaalida waxaan ka rabaa in aan caawiso meesha waan ku dhibaataysanay 2 cisho gudaheeda uu igu iibinaya ninkan
والله بالله بين ما شيء يا حالته الميت بلغ حالته الميت أبي تضوات يوم نصح الله ينيا xalay marun baa in oo nin Nigerian ah la iibiyay xalay أدار بتنو قصته سيقاوي مكان حبته تلا marka adiga markii hore intay ka timid أنت واحد جاي من تجيا haye marka maxaa marka oo markii hore aad u soo tahriibtay marka mala soconin miya xaaladda meesha ka jirta حالته مش لمسعون أنا واسك حالته مش لمسعون لكن وحن قرر الله بدعان سومالي لكن وحن قرب إني لا بعيش كذي يعني يقصون لمسعون حالته له مش صار حلق الله فريستو أي لا سكع بيجي الساعة دي الله قبل نطق نقول سو وبنقص صار ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan ilaahay aan ka cabsano adiga maanta hadii aad TV hor fadhiso koobkaaga shaax uu ku diyaarsan yahay aad caafimaad qabto gurigaaga familkaaga aad la joogtid marka maxaa hadda weelka aan tusaysa maxaa ku jira hadda haye marka goormee wax kugu dambeysay inaad cunto goormee kugu dambeysay hadda bal igu dhiib inaan la hadlaan rabaa ninka oo meesha hadda yarka idin tarjumaanayaan rabaa inaan la hadlo bal hal mar igu dhiib hello my brother all Somali people they can see what the problem is what you can say I'm from Nigeria. Yeah, okay. You are from Nigeria, okay. So that my name is Yusuf. Yeah, okay. This guy is one Somali that we have in this prison. Okay. All the people of Somalia. Okay. codkaaga go-aaya codkaaga go So are you one of them? Are you one of them to have problem? Are you one of them to have problem? No, I'm working for those people. Or I'm working for those people for the Libyans as translator. Oh, okay. You help. Okay. I understand. So what is your message to all Somali people? What? Those people, they don't have humanity. They don't have religions. They don't know that kind of. They know about money. Only know about money. If they are paying the money, now he's going to use it. So yeah. qadka go-aaya waa ku celinaynaa mar kale waxaan wareysan doonaa sidoo kale waxaan wareysan doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo aan caaw ku martiqaaday inkastoo aan isleeyahay ima suurtagelayso laakiin waa arkeynaa walaalayaha Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaan idin ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan ugu yaraan una share gareeya inaad ajirka heleysaan haddii aad share gareysaan waxaa laga yaabaa in hay-ado iyo dad oo adiga saaxiibadaada ah oo hay-ada ku jira ay caawiyaan $5,000 laga rabaa wiilkan Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa mid kamid ah xabsiyada dalka Libyana waxaa ka socota in dadka lagu kala iibsanayo marka kulay 1,000 qofood ka badan ay daawanayso 1,000 qofoodna ka badan wax waa dhiibi karaan
intii telefonka numberkana waxaan kusoo qoraa muuqaalka markaan ka baxo telefonka numberka meesha muuqaalkan korkiisaan kusoo qoraa nambarada laga heli karo wiilkan. waxaan rabaa muuqaal kale inaan intuso uu iisoo duubay inaan idin soo dhigaan jeclaa oo aad share gareysaan, laakiin hadda intaa idinka tusayaa muuqaal kalaa jiro oo iisoo duubay. muuqaalkan bal ila daawada, muuqaalkan marka hore ila daawada. muuqaalkaas waa daawateen, muuqaalkaas aad daawateen waa shalay ayuu iisoo diray. 3 bilood ma uusan qubaysanin, cunto 2 maalmo ka hor ugu dambeysay, calool xumaa meesha ka socota. aniga kulley wax yar waa jeebkayga ku jira waa u awoodi karaa, laakiin kuma filna. waxa aan rabaa marka waxay tahay inaan dhammaanteen wada istaagno oo aan wiilkaas meesha kasoo bixino. arrinta sidii hore ma aha oo dadka waa la iibinayaa marka hore waa la dili jiray, laakiin cunto loo didi jiray. laakiin hadda sheekadu ma aha, sheekadu waxa waaye dada laga iibinayaa, carab ayaa laga iibinayaa. marka wiilkan waxaa la ii sheegay in 2 maalmood gudahood la iibin doono haddii lacagta 5,000 aan lasoo dhammaystirin. waan ujeedaa qoraaladiina inaad calool xumo iyo soo qoraysaan, laakiin 2 arrinba inaan sameyno waaye. 2 arrinna waxay tahay marka koowaad in aan wiilkan u istaagno ayaa muhiimada koowaad ah. istaagidana waxaa waaye in aan wiilkan wixii aan awoodna aan ugu dirno $100, $50, $40, $30, $20, $10 waxay ahaataba inaan isugu darno. nambarada wiilka laga heli karana waxaan kusoo dulqorayaa live-ka markaan ka baxo waxaan kusoo dulqorayaa kor. kulley xildhibaanaan la balansanaa, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo arrinta u bandhigay. waqtigii waa la gaaray, kulley aniga balantu baan inaan aniga waco isaga ahayd inay soo waco xilligan. marka walaalaha idaawanaya waa 1,000 qofood ka badan. 1,000 qofood ka badan waxaa idinka codsanayaa muuqaalka daqiiqada kadib aan soo gelin doono in aad share gareysaan oo aad la wadaagtaan saaxiibadiina si loo caawiyo walaalkan muslimka ah ee Soomaaliyeed ee dhiigga Soomaaliyeed qaba ee dhibaataysan ee aan 3 bil qubaysan, la dirjilo, la dhibaateeyo, cunto la'aan ay ku dhacday, lacag $5,000 loo haystaa, kaaga si darana la iibin doono. marka ilaahay aan ka baqno, ilaahay wuuna firi tusaale. marka macnaa adi isfiiri, reerkaaga la joogtaa, kaama qasno, gurigaaga dhex fadhisaa, waa baashaalaysaa, alxamdulilah, okay, ilaahay kuu gartay. walaalkan dhibaataysan marka waa nagula imtixaana, marka waa caawin karnaa. haddii jaabkaaga uu maran yahay maba lagu haystaba. haddii uu jaabkaaga wax ku jiro, wax ka bixi, haaf xataa ka bixi ugu yaraan. waana ajir weyn in aad qof Soomaaliyeed oo muslim ah oo adiga dhiigaaga dhacaankaaga ah inaad cadow kasoo furato. kulley aniga xitaa gaal waa ku tilmaami karaa, sababtoo dad hadda ninka aan la hadlayay markaas waxaan dhahay muslim soo ma tiidaan dhahay ninka hadda oo magafaha uu isqaranayo ilaa life ku diidan yahay. waxaan dhahay muslim soo ma tiid, wuxuu yiri ereyga muslim meesha ka saar u dhahay, muslim wax la ma jiro u dhahay, meeshaan business socdo. marka kulley
walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa aniga fariinta idin soo gaarsiiyay fariintaana hadda kor waxa xasuusataan dad badan oo saas oo kale Liibi lagu haystay waa soo badbaadinay lacaga u arurnay dadkii ka warqaba ooynaysa ayaan ka farxinay oo gabadheeda u soo deynay wiilka waa ka daran yahay marka gabadhaas sheeka kale wiilka waa ka daran yahay sababtoo wiilkan waa la iibsan rabaa caraba iibsan rabta wiil Soomaaliyeed oo la iibsan rabo waa dareema in dad badan oo mas'uuliyiin xitaa muuqaalkan ay daawanayaan kaca waxa dadka aad mas'uuliyiinta u tihiin ayaa meel ku dhibaataysan marka muxuu Liibi u aaday maxaa afsoom waxaas had wax lagu hadlama wuu ku jiraa badii wuu ku dhex jiraa marka badaas ma ka soo saari karnaa su'aasha waay haa ka soo saari karnaa $5,000 keen bis $5,000 marka gacmoodu jiray wax ku gooyaan 5,000 aan u arurino waxa xasuusteen gabadhii Sumaya 8,000 ayaa waxaan ugu arurnay 3 maalmood wiilkan wuu ka duwan yahay Sumaya sababtoo ah $5,000 waxa lagu haystaa in la iibinayo asoo 3 bil dirjil xoogan loo geysanayo wiilkan waxaan la hadlay Nigerian oo isagana ii sheegay in uu meesha ku jiro oo uu caawinayo wuxuu ii sheegay in xalay dad la iibiyo taasna ma baho إلا خرمد مدوبة إلا عيارتويدي إلا مدحدي إلا فنانينتي أدونك أنا كهليس وحلا حتى عيار أرسنال تايرياش ودو جرونك وحيسو قاتين بور إيكو خورنتاهي جوجيا ليبي واحد ودان دتك أد إيبينيسان صوتو دتك أد بقول سنة كورة دتك اللي إيبسن جري دتك مدوجا هذا ويسول لعبة ليبيا كسعتا مرك ويل صوماليات أي حد أرنت كسعتا ويل صوماليات أي أرنت كسعتا مركا أنا كلي انت انا اود قف ودريمي كرتا يعني قاعد انت انا اود وانت حل حدان هاي لها وحدان arka waxaad ka codsanayaa inaad muuqaalkan share gareysaan daqiiqado kadibna waxaan soo dhigaa muuqaalka wiilkan iyo nambaradiisa wixiisa muuqaalkaas aan soo dhigayaa muuqaalkaas hadii aan isla wadaagno oo asxaabtaada la wadaagtid oo anigana aan idin la wadaago oo la isla wadaago waxaan hubaa in wiilkan aan degdeg u wax ku heli karo laakiin aniga hadaan soo dhigo oo adna aadan asxaabtaada la wadaagin ilaa wax kala ama caawi waxaad awoodo $10 maysa $5 u dir $20 maysta $10 u dir $100 maysta $50 u dir waa intaas un waxa la iska rabaa intaas ay tahay marka muuqaalkan dib idin kugu celinaya muuqaalkan bal calool xumada ila daawada حبدا لفت uga jirta waa u jeedaa korkiisa sida uu cad yahay sida dhulka loogu xoqaayay sida uu dhibaataysan yahay feerihiisa waa u jeedaan xabada lafta uga jirta waa la iibsan rabaa waa wiil Soomaaliyeed aad u jeedaan xaaladiisa waad u jeedaan waa u jeedaas jirkiisa sida uu noqday arki kartaan marka wiilkaas aad u jeedaan waa wiil Soomaaliyeed oo Axmed Nuur la yiraahdo oo wiilkaas aad u jeedaan aan sawirka si fiican ka dhigo waa wiilkaas aad u jeedaan waa Axmed Nuur ayaa la yiraahdaa kulay kaamirada inay si fiican soo qabanayso ma aqaan waa kaasa Axmed Nuur waa wiil Soomaaliyeed oo 3 bil ku xiran xabsiyada Liibiya waxa haysta magafe ama nin Liibiyan ah sida uu doonaba ha noqdee wiilkan waxa la sheegayaa in la iibsan rabo sida aad la socotaana idaacadaha ay dhan sheegayaan TV-yada caalamka la wada socotaan in Liibi dadka lagu kala iibsanayo maalin walba iyo habeen walba iyo daqiiqad walba wiilkan marka wuxuu ku jiraa ama aan isleeyahay sidaan aan ka warqabo waa wiilkii waa qofkii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee la aqoonsado ee mar dhow la iibsan doono haddii aan Soomaalida aysan u kicin waxaad ogaataan
in wiil soomaaliyeed la iibsan rabo. marka qoraalada aad soo qoraysaan waxaa aad uga fiican laba arrin inaad samaysaan aad uga fiican weliba 3 arrin inaad samaysaan. midda koowaad waxaa ah in aad caawisaan, aad ku caawisaan $10 5 ka bixi, $20 haystaa 10 ka bixi, 50 haystaa 25 ka bixi, 100 haystaa 50 ka bixi. ya intaas kaliya samay ajir ilaahay xaqiisu uu kaaga yaalaa. wiil Soomaalida caawisay oo la iibsan rabo oo dhibaatada uu ku jiro waxa ka daran iibsashada la sheegay. marka waa 3 arrin ya. kow waa inaad wax ku caawisaa, waa haddii aadba wax haysato jaabka ku jiro. 2 inaad muuqaalada wiilkan ku saabsan kan iyo midka aan hadhow soo dhigi doonana aad la wadaagtaa asxaabtaad kugu jirto. 5 kun kugu jirto, 10 kun kugu jirto, 100 qof kugu jirto, la wadaag. waxaa dhici karta in saaxiibkaaga oo kugu jira in uu isaga caawiyo. midda 3aadna inaad u duceyso. ilaahay qofur raxiim waaye, wuuna daawanayaa wiilkan si uu uga soo saaro dadkaas isagaa nooga aqoon badan. u duceey in ilaahay uga soo saaro. anigoo ah Idris Cabdulqaadir Maxamed Alteso muuqaalkan waa idin la wadaagay. waa kulay waad u jeedaan magafihii aniga waa la hadlay dhowr jeer, waa isdagaalnay, waa igu xanaaqay, marka wax badan aan is iri. marka qabiil macna marka sheekadu way ka daran tahay. sheekada marka hore waxay ahayd in dadkii la dhibaateynay, laakiin hadda waxaa waaye Liibiya ayaa waa idin ka raargelinayaa baal meesha saarnaa ka dhacay. marka hadda sheekadu waxay aad uga daran tahay. marka hore dadka Soomaali Liibiya waa lagu dhibaateyn jiray. waxaa arki jirteen gabar la tumay, waxaa arki jirteen wiil la garaacay. laakiin hadda sheekadaas way dhamaatay. hadda sheekada waxay socotaa in dadkii la iibsanayo oo maxaan ku dhahaa dad kale laga iibinayo, oo carab laga iibinayo, oo afrikaan kale oo Liibiyaan wax laga iibinayo. marka wiil Soomaaliyeed ayaa la iibinaya. marka waxaan u baahannahay in aan u istaagno oo aan u duceyno oo aan wixii aan awoodno aan qofkan marka insha Allah kulay halkaasaan uga baxayaa. wax kale hadda aan sheegi kara ma leh. kulay arinta wiilkan kusoo kordha gadaal aan kaga socodsiin doonaa wixii xaaladda wiilkan ku saabsan, haddii lacaga soo gaareen, haddii wax loo soo diray, iyo haddii idinkaad caawinaysaan. waxaas oo dhan gadaal aan kala socodsiin doonaa hadduu Ilaahay raado. ilaahayna Soomaalida nabad ha siiyo. ilaahay inta caafimaad aan qabina caafimaad ilaahay siiyo. wiilkan dhibaataysanna ilaahay dhibaatada ka saaro oo cadowgaas uu gacanta ugu jirana maxaan ku yiraahdaa ilaahay ka soo saaraan leenahay. Soomaalidana waxaan ka codsanayaa in ay wiilkan caawiyaan. numberka wiilka lagu caawinayana haddii aad u baahan tahay message waa ii soo diri kartaa. haddii kalena live kan markaan ka baxo numberkan kusoo dul qoraa. haddii kalena boostiyo kale oo soo socda oo muuqaalo oo isaga ku saabsan ayaan soo dhigaya. numberkiisa waa soo raacsinaa. numberkiisa lama weynayo, waa ila soo xiriiri kartaan. live kan markaan ka baxno koraan uga soo dul qoraa insha Allah. fadlan muuqaaladan share gareeya. wixii kusoo kordhana waa idin la socodsiin doonaa. ilaahay waxaan uga baranaa wiilkan in ilaahay dhibaatada uu ku jiro, dhibaato ku jiraa. anaga dhibaato kuma jirno, aniga iyo inta daawanaysa sanfilay dhibaato kuma jirno. marka qof xanuunsan iyo qof dhibaataysan way kala duwan tahay. marka wiilkan waa dhibaataysan yahay. marka insha Allah ilaahay dhibaatada ka saar, ilaahay cadowga gacantiisa ha ka bixiyo. wixii soo kordhin insha Allah waa socodsiin doonaa. hasanidin.